ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo habeen ka hor uu magacaabay golihiisa wasiirada ee Soomaaliya waqti dheer laga sugayay ayaa wasiirada waxaa kasoo dhex muuqday shakhsiyaad ku cusub siyaasadda Soomaaliya. Wasiirada xukuumadda Roble ayaa ka kooban 27 wasiir, 17 wasiir dowle iyo 26 wasiir ku-xigeen, waxayna wadarto yihiin ilaa 70 xubnood oo wasiir ah. qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ayaa hadda bilaabay ololo ay ku doonayaan sida ay u kasban lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka si ay kalsoonida kaga helaan. wararka qaar ee heshay idaacadda Risaale ayaa sheegay in caqabado badan ay wajahayeen wasiirada cusub ee Mr. Roble oo qaarkood xildhibaanada ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya laga yaabo inay ka waayeen codka kalsoonida. wasiirada laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed ayaa xalay magaalada Muqdisho kulan qaas ah waxay kula qaateen xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee gaaraya 69 xildhibaan oo lagu daray xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka. dhammaan xubnahaas ayay weydiisanayeen sidii codka kalsoonida u sii lahayn marka baarlamaanka la horgeeyo. wasiirada ayaa qayb ula kulmaya deegaan doorashadooda xildhibaanada ka soo jeeda kuwaas oo hadda ay bilaabeen ololaha ku saabsan sidii codka kalsoonida u heli lahaayeen. warar soo baxay ayaa sheegaya in xukuumadda Roble ay suurtagal tahay in xogaa cadaadis ay kala kulanto dhanka baarlamaanka maadaama xildhibaano badan oo doonaya ama rajo badan ka qaba inay kasoo dhex muuqdaan wasiirada xukuumadda Roble ay iska waayeen kuwaas oo boosaskooda lagu bedelay shakhsiyaad ku cusub siyaasadda Soomaaliya. marka laga tago xubnaha wasiirada oo hadda bilaabay ololaha ay ku doonayaan kasbashada baarlamaanka iyo sida codka kalsoonida u heli lahaayeen ayaa dhinaca kale madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka soconaya kulamo isdaba jooga oo wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu uu la qaadanayo guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sida codka kalsoonida loo sii lahaa toddobaadkan. waa toddobaadka soo socda la filayo in baarlamaanka la horgeeyo. dhinaca kale dib u dhaci ugu horeeyay ayaa wajahaysa doorashada Soomaaliya kaas oo heshiis ay ka gaareen dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada dhamaadkii bishan ka soo gudubnay. habraaca la soo saaray ee doorashada ayaa waxaa qayb ka ah 10 ilaa 20 Oktoobar inta u dhaxaysa in lagu soo magacaabo gudiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ka kala imaanaya 5 maamul ee dalka ka jira iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya. weli lama magacaabo xubnahaasi taasoo loo aaneynayo dib u dhaci ugu horeeyay doorashada. inkastoo warar soo baxay sheegay in arrintaas ay ka gaabiso xukuumadda Soomaaliya, dad badan oo doorasho siyaasadda iyo siyaasiyiin falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya in dib u dhacan ay sabab u tahay dhanka xukuumadda oo doonayso in waqti iyo bilooyin gaar ay hesho si ay xukuumadda fursad dheer u sii heshana laga yaabo dib u dhac walba oo soo wajaha doorashada ay keeni karto in waqti dheeraad ah dowladda Soomaaliya hesho sida uu qabo siyaasi Maxamed Macalin Cali oo la hadlay Risaale waxa uu sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ay ka gaabisay doorkii loo baahnaa fulinta heshiiskii ay wada galeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. arrintaas wadiyo badan way leedahay. waa mar sida wararka qaarkood tilmaamayaan xukuumadda laftigeeda qayb ay ka tahay oo la tilmaamayo in iyadu inay waqti ku darsato oo bilo ku darsato ay danaynayso taasna ay ka gaabinayso hawshaas in ergooyinkiis waqtigoodii la magacaabo ama waqtigoodii maaragtay hawsha ay bilaabato. tusaale ahaan haddii maamul goboleed kamida xubnihiisii ay maqan yihiin xubnihii kale xataa waa in waqtigii maadaama la gaaray ay shaqadii sii bilaabaan taasoo laga yaabo in xubnaha kalena ay ka daba yimaadaan. laakiin haddii hal xubin oo khilaaf maamul goboleed iyo xukuumaddu ay isku haystaan haddii uu ka gaabiyo wixii dhammaan in la fashiliyo maahan. marka gaar ahaan arrimaha jubbooyinka ayaa khilaafkaas usii xoogaysanaya oo sababi kara in aysan xubnahoodii soo magacaabin xukuumadduna ay ka gaabinayso iyadana aan dareemayno inay danaynayso arrimahaas inay soo cusboonaadaan si waqti dheeraysi ay uga hesho taasoo laakiin iyaduna keeni karta fashal kale oo ku yimaada hanaankii lagu heshiiyey iyo hanaankii sidii marxalad xasiloon oo nabadeed marxaladan kala guurka loogu tilaabsan lahaa wadankana doorasho nabada ay uga dhici lahayd. maadaama waqtiyadii u dambeeyey dalka gudihiisa ay doorashaduna ka dhacaysay si xasiloona madaxweynayaashu ugu kala wareegayeen. marka sidaas ayay ahayd in ay arrintu hore loo galo waqtigana maadaama la xadiday lagu shaqeeyo. laakiin caqabado badan ayaa ka muuqda in curyaamin badan baa ka muuqataan isleenahay labada dhinacba hadday ahaaleed arrimaha jubbooyinka iyo khilaafka kasoo cusboonaaday iyo xukuumadda oo damacaas ku jiro in ay bila ku darso.
jadwalka la soo saaray ee doorashada Soomaaliya ayaa waxaa ku xusnaa 10 ilaa 20 Oktoobar magacaabisa guddiga doorasho sidoo kale isla guddigaas ayaa tababaro la sii lahaa 20 ilaa 30 Oktoobar wixii ka dambeeyay bisha November waxa la gudageli lahaa ergada xulisa iyo baarlamaanka intaba hase yeeshee qorshahaas oo dhan ayaa u muuqanaya in guud ahaanba meeshuu ka sii baxay maadaama ilaahay hadda aan la magacaabin xubnaha guddiga doorasho dib u dhacyadan ayaana loo sababeynaya laba arrin oo mid ugu horeysa xaaladda gobolka Gado aan wali wax iska bedelin marka loo eego maamulka Jubbaland oo dalbanaya in guud ahaanba ciidanka dawladda laga saaro gobolka halka dawladda Soomaaliya wali ciidamo hor leh ay ku daabuleyso gobolkaasi Gado degmooyin kamid ah iyo in sidoo kale siyaasiyiinta qaar ay sheegayaan xukuumadda Soomaaliya doonayso inay ku waqti dheereysato arrimaha doorashooyinka